wakaalada biyaha Hargeysa ayaa xaflad ugu sameysay xarunteeda Hargeysa dhagax dhiga shaybaar cusub oo tayada biyaha lagu baarayo iyadoo oo shaybaarkan uu yahay kii ugu horeeyay ee noociisa ee dalka la keeno marka dhismihiisu dhamaado ayaa loo isticmaali doonaa la socoshada tayada biyaha si loo hubiyo badbaadada biyaha Hargeysa iyadoo oo la baarayo in biyaha aanay la socon qashinada bakteeriyada mirirka biraha iyo maadooyinka kiimikada sidaasna lagu hubin doono in dadka gaadhaya 1 milyan ee degan caasimada magaalada Hargeysa iyo dadweynaha kale ee Somaliland ay helaan biyo nadiif ah. xafladda dhagax dhiga waxaa si rasmi ah u furay madax sare oo ka tirsan Somaliland oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta ee Somaliland Ali Xuseen Ismaaciil Ali Shombe maariyaha wakaalada biyaha ee Hargeysa mudane Ibrahim Siyaad Yoonis iyo gudoomiyaha guddiga biyaha ee Hargeysa Marwa Adna Aadan Ismaaciil mashruucan waxa maalgelinaya sanduuqa horumarinta Somaliland waxaana la filayaa in uu ku dhamaado muddo 4 bilood ah. mashruucan waxa uu ka kooban yahay dhismaha xarunta shaybaarka iyo qalabayntiisaba iyada oo lagu rakibayo qalab casri ah oo lagu hubiyo tayada biyaha waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maariyaha wakaalada biyaha Ibrahim Siyaad Yoonis waxaanu ka waramay sida ay uga faa'iideysan doonaan in shaybaarka tayada biyaha waxaana isagoo arimahaasi ka hadlaya hadaladiisi kamid ahaa mashruucan faa'iideysu waxay tahay noloshu waa biyuhuna waa nolosha saynu wada ogsoonahay biyaha Hargeysa imika yimaada iyo kuwa mustaqbalka iman doona aad u farabadanba waa la ogyahay quality-gooda waa biyo aad u fiican haddana waxa daruuriya mar haday biyihii yihiin nolosha yihiin in mar kasta la jeegarayo maalin walba la jeegarayo halkii ka soo baxayaan la jeegarayo halkii ku soo dhacaan la jeegarayo halka ugu dambaysa soosko halka qolku ka furanayo qasabada gurigiisa la jeegarayo marka waxa qorshahayagu ahaa anagoo la kaashana wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Somaliland in Hargeysa yeelato laab casri ah oo wakaalada biyaha Hargeysa jeegarayso ilaahay baan ugu guuleeyay mashruuca in badan baan hawshiisa ku jirnay. dhinaca kale waxa iyaduna xafladaasi ka hadashay gudoomiyaha guddiga wakaalada biyaha ee Hargeysa Marwa Adna Aadan Ismaaciil waxayna sheegtay inay sharaf weyn u tahay in ay maanta goobjoog ka ahaato meesha lagu dhagax dhigayo shaybaarka biyaha waxaana hadaladeedii kamid ahaa maanta ay tahay inaan xaadir aan goobjoog u ahaado meesha lagu dhagax dhigayo shaybaarka lagu hubinayo biyaha inaynu cabno sidaad ogtihiin biyuhu waa nolosha laakiin si biyuhu waxay xambaaraan waxyaabo badan oo caafimaadka waxyeeleeya haday noqoto wax wasakh ah oo cudur keena oo biyaha soo raaca ha noqoto macdano ku jira dhulka hoostiisa oo biyaha soo raaca oo iyaguna ma caafimaadka bini'aadamka iyo wixii caba xoolaha iyo dadkaba waxyeelo u geysta waxaan oran karaa waa horumarada waaweyn ee Somaliland ay gaadhay waxa jirtay maalin biyo lahayn waxa maanta la tiigsanayeen qaranka oo dhamay meel biyo laga helo gabagabadii waxa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Somaliland Ali Xuseen Ismaaciil Ali Shombe waxaanu u mahadnaqay qaran bixiyaasha maalgeliyay sanduuqa horumarinta Somaliland waxaanu yiri dhiga shaybaarka ilaalinta tayada biyaha ومركي ugu horeysay ee taariikhda Soomaalida maaha Somaliland laga hadla tayada biyaha dadku cabayaan dawladihii horaanay jirin tii Ingiriiska aanay jirin Turkigii ka horeeyay baanay jirin masaaridii u dhaxaysay baanay jirin 25 sanadood ee joognay inaan ku talaabsano waxa ka mid ah guulaha waaweyn ee Somaliland gaadhay iskamaysa iman dad ba ka soo shaqeynayay maalinba dhagax ba meel la dhigayay talaaba la qaadiyay talaabaas la korinay waxa xukuumadan hadda joogtay oo hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanya ay ku suntan tahay tii horumarka waxaana tusaale marxaati ugu dambeeyay mid maxaa u dambeeyay ka la siisiyo waa shaybaarkan imika aan dhagax dhigano kuma koobnaanayo biyaha wakaalada biyaha oo kaliya warshadaha biyaha soo saara ayaan iyagana u sheegay ha ku sii tala galaan shaqaalaha laabku iyagoo kitkooda sitay ku imanayna sambalka ka soo qaadeen warshadii quality-ga iyo standardka loo sameeyay ka soo bixi weyda waa laga xidhay dadka la sumeyn maayo wala ga badbaadinaya dadka shirkadii biyo wanaagsan oo tayo la soo saaro iyadu laabkeeda sameeysan weyda waxaan idinku la sii talinaya inaad laababkiina samaysataan warshadaha biyaha oo biyihiina quality control-ka idinku ku sii sameeysan intaanay wakaalada biyaha Hargeysa idinma
cabdiqaadir maxamed aw xasan telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.